xanuunkeedina intii taageeda ahay kaway ka qaas isagoo u yimid waxaan ku dhacayna ayaan oogay inantii wad waxa la gaadhay dhimashadeedii niman aanu saaxiib nahay inaysa iyaga saaxiib ahaayeen oo macnaha qofka asxaabta tihiin qofka asxaabta yihiinna si uun baa isu barataa saa isu barataa qof inaan markaa saaxiib ahayn inay saaxiib yihiin anagoon inaan kaa kale aad isu aqoonin laakiin dee si guud ayuu inan buu la sheekaysan jiray waxay joogtay Kenya isaguna wadamadan Afrikadan kale ee Soomaalidu ganacsiga ku leeyahay ayuu joogay niyow inantii xanuun baa ilaahay ku sallada way xanuunsatay xanuunkeedina intii taageeda ahay kaway ka qaris isagoo u yimid waxaan ku dhacay inanta ayaan oogay inantii wad waxa la gaadhay dhimashadeedii iyo gabagabadii maartay nolosheeda way deetana hal mar ayaa wax ku warhay dardaarankii ay dardaarmisay oo cidii nafbixeeda joogtay ayinba dardaarankeedii u soo gudbisay iyo saacadihii geeridooda loo soo sheegay waqtigan uu ogaaday xanuunkeeda iyo khatartay ku sugan tahayna muu waxili dambe kowde oo de xilli macaa maartay naftii ku gaadho isdul taagayba may noqon si yaroo degdegana inta xanuunku ugu soo qooday marka waan iska bilaabayaa iyana qisadaas xanuunka badan leh inanka marka naxdintii laga nixiyay dareenkii uu dareemay ayaa qabti maskaxdiisa noqotay khalkhal dadana khalkhalkii buu kaba soo noqon waa leeyo min hada ilaa maanta dad taagay khalkhalkii qabti naxdintii marka ayuu ka soo noqon waay dadana 5 jeer hadda marka dhowr goor salaato magacii gabadha ayuu ku soconay marka waxa ay gashay markan qisadii ogaaday hadda marta isaga u hadli lahayd maxaad oran lahayd wuxuu yiri nasiib yahow ii daraaday waqtiyo ii laba dileeyay dareen yahow aan la ooyay haday tan ii dambeysay maxay dunida bataraysay waxaan farxad soo dakeeyay waxaan qosol daadaheeyay kalgacal muddo soo durduurtay daadkii warwarka ay qaatay dubba igu dhacay xanuun labadii murugada dabaashay wuri dabba iga ooga saaka diirkay gubanaya maanta dubkay ololaya caawa dubaaxshay way quluubta maantiyo dabadeed adduunka baraariya farax isteynay buu yani farxadii isbilownay buu leeyahay baraariya farax isteynay anoo raba doonistaada miyaa duni igu cidlaysay ilaa qadar baan dabroogin deyrkii nolosheeda waay ayaantu dariidsanaade sihaan baa dunida dhaaftay oo aanan dib loo arkaynin saakiyo murugada dareenka la daakiray geeridaada farxadii qalbiga ay idaysay sihaamay dunida dhaaftay dardaaranna iigu dhiibtay dadkii nafbaxaaga joogay waxay tidhi hayga dooxu ha ooyin daweeya aamu dibnaha calaashan qaali ku daayo way is arkaaya caloosha adkee dareenka haddaad muddo iga dambayso qabrigu waa degel madow ducada igu kaa xabiib inaan rabbi ii darnaanin dardaaranno waa intaas naftan dugsan jiray ilaali axay garidu daraadhe buu bal may dadka qaar naftooda u daysa adduunka maalmo haddaanan dambaaba haynin sintaada in la igu duugo walle inaan dooran laayo iimaankayga ay dabrayo hadeerse anaa dayoobay daryeelay geeridaada darxumo ii koosatuundhe ka soo damqanaysa uundhe xasuus daa'imana uundhe dhib iyo daranyiyo xanuundhe qofkaygiyo doonistiidhe dib baan arse ku arkaynhe haddaan dunidii ku waayey markaan kaa daba imaado nolosha aakhire docdeeda adoo dunta xuuralcayna ilaa nolol kula dakeeyo duraansada qaadirkayga cafiifadunaad ahayde samreeye waan kuu duceeyey cafiifadunaad ahayde samreeye waan kuu duceeyey malaa'igi meel dalxiis leh dawaaf ha ku soo marsiiso malaa'igi meel dalxiis leh dawaaf ha ku soo marsiiso qabrigu daalacan xabiibi nuur iyo daah wada iftiima nabiga dacalkiisa joogso jannada ku dakee xayaati durduura fardowsa qaali xasuustaaduna dushayda ku daabacan waxyahayga intaasay maasadaasna ay ahayd